waxay sidaan qoryahan goobta dagaalka ka xumaaday oo loo soo hagaajiyay iyo saanad bay sidaan oo Itoobiyaanku u soo hagaajiyeen. Nimanka waxa si toos ah u taageeray Imaaraat baa taageeray dhaqaalaha siinaya. madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa si qaatumo adduunka kama shaqeyso madaxweyne wasaaradda caafimaadka shaqadeeda qabta, taliyihii ciidanka shaqadeeda qabta, wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda qabata. China waa ina taageersan yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii process garan lahayd meeday wasaaradda warfaafinta ee islaamka meeday ma afriye kaliya ma meeday wasiiradii meeday saraakiishii inta kale maxaaba haddii madaxweynuhu wax ka khaldamaan Soomaaliya saxdaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال كستو نقدر يسألسان هل كني وعباس مدني وردق دقة أيان يدلو ذا يا حق رنتي لما يسترن وأن كهل إنه دنك عدوجا حق تاني وحرمنا إن مال إرجارسان سببته حوام بدن أيان صبياني دولان كمركلة يسكسو قاضي يعني كوحة نبديت كجماعة أرجع حسد أسرع شركة يوجد بأيشان معلمي لصورة في halka targetkoodu yahay bifadlowkum waxay idinka codsanayaa inaad sii shargaraysaan si xogtani dad badan u gaadho, maamulka khaatumo u gaadho, saraakiisha u gaadho, ciidamada qalasyada jiidaha ku suganna ay warbixintan u gaadho si ay uga feejignaadaan. ugu horeyn maalmaha soo socda toddobaadyada soo socda waxaa la filayaa inay bilowdaan dagaallo waaweyn la filayo inay ka dhacaan jiidaha hadda ay isku horfadhiyaan ciidamada militariga daraawiishta dowladda SSC qaatumo iyo kooxda nabadiidka ee jabhadda argagixisada Islam beekii maalintii dhaweed ay u bixiyeen samriye markii dambena saqiiriye noqday cadawga lagu saqiiriyay nimankii fagaarayaasha Soomaaliyana way ku ceeboobeen sababtoo waxa weeye jabka gaaray khasaaraha adsabo dhaawac la geeyay baan ognahay baraleska markastoo ay dagaal soo qaadana way ku jabaan. Waxay galeen shirar farabadan oo dhexdooda ah. shirarkaasi waxay hoga tusaaleen badan ku sameeyeen mar kalena weerar ay qaadaan, waliba weerarkaasi waa weerar ka duwan weeraradii hore meelaan laga filanayn ayay rabaan in weerar ku qaadaan. xilliga iyo timeka ay weerarka qaadayaan waa arrimo sida ciidamada saraakiisha la wada. Imaaraatku wuxuu siiyay 20 milyan, lacagta 20 milyan waxa la bal ugu yaraan ciidamadii ha ku soo kabtaan saanadii rasaas iyo qoryo malaha ka xumaana waa ay ku soo hagaajisteen. ciidamadooduna reform bay ku sameeyeen, wixii jabhadaha ay kulligood abaabul bay ku wadaan. gaadiidkan hadda u jeedid baraya wajaale waa propaganda. gaadiidkan waa 4 gaari, gawaarida loo yaqaan isjiidka waxay sidaan gawaari qoryahan goobta dagaalka ka xumaaday oo loo soo hagaajiyay iyo saanad bay sidaan oo Itoobiyaanku u soo hagaajiyeen. kaarayaasha laga qabtay ee hadda ciidamada ay qaatay ay hayaan hadda ka hortaas oo kale Itoobiya u geeyeen loo soo hagaajiyay markaas dib loogu soo celiyay. marka 300 gaari way 30 gaari way waxba kama jiraan warkaana soo xaqiijiyay waa 4 gaari oo ay saareen qoryahan waxa weeye hadii la kuureeyo goobta dagaalka ee madaafiicda ee da 30 leh ee 105 leh kuwaasoo ka xumaaday ayaa loo soo hagaajiyay. saanad badanna waa hadii la kuureeyo waa soo heleen. 4 gaari way maaha 30 maaha 20 maaha 10 maaha waxay buubuuninayaan waa 4 way. taasna ana idii xaqiijiyay wararka propagandadana hal iska ilaaliyo. nimanka waxa si toos ah u taageeray Imaaraat baa taageeray dhaqaalaha siinaya. madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa si qaatumo adduunka kama shaqeyso madaxweyne wasaaradda caafimaadka shaqadeeda qabta, taliyihii ciidanka shaqadeeda qabta, wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda qabata, taliyihii booliiska agaasimii shaqo kasta dowladeed madaxweyne iyo fardi ma qabto. madaxweynaha horena waa kula talin, hadda waa kula taliyana guddi arrimaha dibadda magacaaw oo ka shaqeysa saaxiibeen khaatumo loo raadiyo. ha isku koobi madaxweynaha shaqada waa in lagu la qaybsado cidda arafeesarka ku ahaan. waxaan rajaynaynaa inay fariinta ay ku gaarsiiyaan. Imaaraat ayaa hubeynaya, Imaaraat ayaa opposite ku ah, qadar baa opposite ku ah. waa inuu qadar helaa linkigeeda diyaar bayna u tahay. adduunkii sharciyadii caalamigeed waa luntay. adduunku marxalad adag buu galayo dagaal ah. marka qolo walba cid bay lidii isku yihiin oo ay iska soo horjeedaan. waa inuu qoladeeda hadii la kuureeyay inana aanu soo xorana weeye. oo arinta ayaa ka shaqeyn kara khubaro guddi ah oo runtii expert ah ayaa ka shaqeyn karta. madaxweyne talooyinkan hadda kor waa siinay inuu guddida magacaabo. China baa kamid ah dhawaan wuxuu soo saaray maqaalka soo qoray way ogtahay
SNM waa qayb ka mid ah Soomaaliya yiri faragelintan ha joojiso ay ku hayso China ama Taiwan xiriirka ay la sameysay China waa ina taageersan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay cidii process garan lahayd waxa u baahanahay baa loo baahan yahay guddi baan ka shaqeyn karta madaxweyne guddidu intaas hawlood bay qaban lahayd siyaasadda arrimaha dibadda oo meelaha lagu kala adkaado guddi waa loo baahan yahay dadkii aqoon-yahankii iyo siyaasiyiintii reer FC qaatmo banaankaasi ka istaageen kaliya weeye madaxweyne talada qaado guddi magacaaw arrimaha dibadda ka soo shaqeysa oo China iyo Qatar iyo dhulkaas oo dhan lacagtaas ku soo maraysa tabanay comeback sameeyaan fagaraashii Soomaaliyeed iyo caalamku way ku ceeboobeen waxay rabaan waxa ceebtaas kaga waxa weeyday la kuura dhaqan bay doonayaan ku dhawaad dagaalkii gooja aad kadib 25 August ilaa 20 weerar bay soo qaadeen waa ay ku jabeen kii maalintii dhaweyd baa ugu dambeeyay jimcihii ay wadaxeen markii ay weerarka soo qaadeen hadii la kuura samriye laakiin ay noqotay qeyriye waxa ay soo saareen oo ay dib habeen ku sameeyeen dhaqaatiirta ama dhakhtarada waaweyn kuwa public ay kuwa private ah waxa leeyahay wax lacaga oo ciidanka laga qaadi karo soo dhaawacma ma jirto waxa la baneeyay isbitaaladoodii dhiig ay shubayaan dagaal been u diyaar garoobeen waxay doonayaan oo xogtaan ku helay inay goob badan weerar ka soo qaadaan hawdka sool iyo sanaag inta badan weerar ka qaadaan bay rabaan oo ay culayska meel ayna filayn culayska saaraan maalintii hore boqorkay weeraray Soomaa maanta boqorkay weerar ma meel kale weerarayaan meelaha weerarayaan ciidankan gaarsiiyay halka ma rabaan ka sheego meelaha targetkoodu yahay meelaha ay rabaan inay dhaawac ka geystaan ciidanka by telephone baan kula hadlay saraakiisha waa gaarsiiyay laakiin waxaan rabaa halkan waxaan ugu talagalay shacbiga waxyaaba dadka qaar waxyaaba la gaarsiin kara jira waxyaaba qaar waxyaaba secret jira shacbiga in ay diyaar garoobaan oo arrimaha aynu ku mashquulsanahay arrimaha dhexdeena ama doorashooyin ama dastuuro ama walaahow wax ayna shaqadeenahay baan ku mashquulsanahay cadaween halkaas waa wada la kuurey isku soo urursanaya bisha Abriil March hadda aynu ku jirno dhamaadkeeda laga bilaabo maanta caawa laga bilaabo ilaa Abriil May June July afarta bilood iyo 10 bariba dagaal ha loo diyaar garoobo reer Qaatimo dagaal saf balaaran ah ha loo diyaar garoobo Soomaaliya cunaqabateed waa laga qaada cid walba hubkan access bay u leedahay soo iibsato reer Qaatimo waxaan leeyahay ha ku haleynina dawladda iyo xukuumadda difaaca dalka waxaad moodaa hamrasho badan isdhigasho badan waxaana taas sabab u ah cidda ismahadisay ee maamulka xukuumadda hadda joogtay Khaatuma State ayaa waxa way dhaliisha ugu weyn leh isdhigasha muuqata anu nimankan uma jeedo niman dal difaac kareynayeen kama hadlay ciidanka waxaan ka hadlay maamulkooda ka hadlaya niman dagaal u diyaarsan oo dagaal u diyaar garoobay oo anjada iyo hadii la kuuray qorshayaal kale ma bahaba aad baan uga xumahay runtii inaan kelmadda ay yiraahdo runtii aad baan uga xumahay waxaan se leeyahay reer SSC Qaatimo waa la doogayaa la dacaroon waxay imaan doontaa insha Allah rajaynaynaa hogaamiyaal inaga turjuma oo difaaca waxa weey ay balan A balan B balan C balan D ay difaac u tahay oo waxa weey hadaf dheer la baan rajaynaa insha Allah ta'ala inuu hello hase haata inta ka horeysa in la diyaar garoobo nin kasto ciidan oo fasax ku maqnaana waa inuu furimaha hore iska soo xaadiriyaa shacbigu wayne kacaan oo isbedel muujiyaan dalka dawladda yaan lagu haleyn wallahi waxa ku soo socda duulaano kulliga ciidanka wala wadaaga saraakiishooda madaxda xitaa wala wadaaga Qaatimo ogyihiin oo ogsooyihiin oo iyadoo ficil aad aragtaan diyaar garooba suuf alool Oromo Charso Isaaq Khan ka maqan aanu jirin gadabursi kulligood waxay isku soo urursadeen huwataas oo dhan sidii ay duulaan ugu soo qaadi lahaayeen dalkeena iyo deegaankeena waasa ku filana dakadaas in badan bay xidhneed qalaleed waxa soo dhan hubla soo duubay Muuse oo soo makaysaneen Muuse ba soo meeyna arkayn dagaalkii 23 Muuse hub soo daabulay Muuse saanad keenaya Muuse wax walba soo daabulay waxa soo qalasay lama wareegin kuwaan Ilaahay fadligii wala wareegana midna bushaara idii hayaa bushaaro inay ma haynas dhigataan ma laakiin waxa rawi bushaaro waa guulaysanayna xaqiiq weey jab weyn bana gaaraya jabada argagixisada Sanam wallahi waxa ay tusi doon hadaan noolaado hadalkayga wada xusoo doontaane iyo afkayo ka bixin ku soo qaadaya Janiskii hore 25 kii baa laga haray dagaaladii ugu dambeeyay dhan baa laga haray
nimanka already didiga helenba waxay meel ku safgaraysteen inaan been weeraraynba inaan baynagu weerar ku ahaynba waana takantayaguna mar walba weerar raacaa arintaasina waxay ku dhacday nidaam xumo ka jira maamulka ciidanka ama ka dawladda ama ka ciidanka sababta ciidan difaac iska ahaa wali taariikh lama arag inta wiil askari oo qalasa difaac kaaga dhiman la wan weerar kaaga dhinta weey 100 jeer baanu talo soo jeedin 100 jeer baanu gaarsiin nimanka maamulka inoo haya ilaahay khayraas yaalana ilaahay khayraas wax kale oo dhahna garamayno si walba ugu sheegna dadkii kale irdheeye kii la talin lahaa aydiye waxa way kii tala siin lahaa aydiye kii daacad ah muwaadinka shaabadu ku dhajinayaan dalkan wax wanaagsan uma wadaan waxaan leeyahay maamulka isqaatmo inta muddada idii harsan xukuumadda war ciidanka ku filaada inta garaweyna war difaaca ku filaada inta garaweyna war ciidanka tayada inta garaweyna ilaahay inta muddada gaabanay waxa weeye idii hadhay ilaahay haydu ku ceeb asturo shacabkan waxa leeyahay yaan lagu hadleen dawladda difaaca dhiiga shuba jamaahiirtu furmaha iska xaadiriyaan dalka difaaciisa oo mas'uul wadareed weeye isku filaansho dawladda kaliya looga banaan karo faraha looga qaadi karo difaaca deegaanka ma muuqda waa may weeye wasiirkii caafimaadku meeyay Dr. Sanad Soomaaliya inuu isbitaaladii waxa weeye diyaar gareeyo oo dhiiga la shubo oo wasaaraddu hadasho maxaa aamusiyay wasaaradda caafimaadka isaaq waa hadlayeen doorku shabada argagaxo sala meeyay wasaaraddeeni wasaaradda warfaafinta islaamka meeday wasaaradda islaamka ee dadka baraarujin lahayd ee dadka kicin lahayd meeday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun starihi ciidanka ee militariga iyo taliyaasha kale ayaga kala duwan tababarama furaan active ma yihiin dhiig cusub ku shabeen halganka waa may way waxaan leeyahay war haddii wax walba mas'uuliyadda aad istiraadaan qabta aad tiraadaan madaxweynaha noogu qabsanay madaxweynaha war adeero ha ku eeyoon iscasila idinka la eedeynaya waxa la hawl hadii dhamaan weydo ama wax ku jira ba laga reebay ama waxan ku jirin ba lagu daraya dhaliishu meesha ka jirto ama idinka way bahashu meesha hadii la kuriyay qaldan tahay ama waa xagga madaxweynaha weey sida daraadeed cidda sixi karta waa idinka weey hadii madaxweynuhu wax walba rabay inuu ku qabsado shaqo walba isagu qabto war meesha ku fashilmaysa asila cid kale soo dhiibtay dalkan difaaciisa maamulkiisa idinka la idinka isaaq way soo taabashaystay waxa ka shaqeynayeen waxa xuduudiisa dhaqaalihiisa ciidan buu geliyay tababarro furay isbitaaladii buu hadal ku reeyay bilaash ka dhigay ciidamadoodu buu habeen reform ku wadaa madaxweynaheeni iyo dawladeeni waxa kala war ciidanka waxa weeye waqtiga ciidanka xuquuqdiisa hal dhowro tababaro u furbaan ka karlaana madaxweynaha xukuumaddiisa gacan culays ana sibdaro weeye anigu ka daali maayose waa wadayga intaan hadii la kuurayay intaan wadi karo waa wadaya wixii xogaan gaarsiin karana shacabkan gaarsiinay shacabka iyo qalasyada baan gaarsiinaya maamulka iyo mas'uuliyadda intaan tala siin karana siinay wallahi wax kale naga ma la jecelo beenaga ta isaaq wuxuu ka xareysan yahay wixii qaranka barido way ku sheegayeen inaynu reer ka dhignay inaynu jabhada ka dhignay inaynu fashiranay isaaq wuxuu ka xareysan yahay waxa hub laga furtay isaaq wuxuu ka xareysan yahay dadkii ku dhaadan jiray haliyadoodii iyo saraakiishooda maanta maxaabisinooyin war saraakiishooda maxkamad saar karlaana oo madaxweynaha inuu digreeto soo saari kale maxkamad saar ummad bal iska xidhan ka war aan jada la imaanay oo aan creative ahayn bal ka war shacabka reeraysi qaato sida daacad u yihiin iyo cidda hoggaanka ka dhigteen inaana hoggaan ka turjumaya waxa xaqiiq weeye ma afriye kaliya ma wasiiradii ma saraakiishi inta kale maxaaba hadii madaxweynuhu wax ka khaldamaan Soomaaliya saxdaan wasiiradu saxaan oo saraakiishu saxaan waxa maqashay xoradaas oo wada ulo qaata malaha waxa soo dhow waxaan idinku canaanay away waxaan doonin away annagu shacbigii dadkan deegaanka mana xukuumaddeedii baatiin madaxdeedii baatiin inaad ta tuuta xidhataan oo madaxweynuhu tuuta xidho oo wasiiradu tuuta xidhaan oo isbitaalada la baneeyo oo tababaro la furo oo deegaanka xaalad dagaal la geliyo isaaq huwantoodii haan ka maqan jirin bay soo urursanayaan idinka duulaydu ku yihiin mar boqorka baa idinka dhafanaya marka boqorka isku soo ururtaan hadana meel kale baa lagu dhafanaya marka idinku ma brano bantiin meedan hadaf lahayn ma idinku musu gool lahayn maalin wali meedan soo weeraraya meedinku weerarayn
ما يديكوا ويرين باشا عالم قدونكو مسبح إمسا باشا عالم كل وركسوا على ساعات وحول بسميني ما عنده محكمة يا سي ما عنده حكومة يا سي horta weerarnimada aynu barano adduunku ninkii awood xoog leh ba adduunku la shaqeeyaa beesha caalam waraaq noo soo qortay cid baan noo soo cashay war waxa iska ilow waliya ma beesha caalam ka shaqeysaa waa may wey ugu dambeyn shacabka reer Istiqaatib ee dalka jooga magaalo walba joogan war kaca fadhi ka kaca ninkii qori qaada jiida ha tago isbitaalada ha la baneeyo shacabku jamaahiirtu ha kacaan dawladda ku haleynina difaaca dalkiina ha ku haleynina dawlad ومسؤول وزارات وي دالك هلا الدفاع هلا ديار قروبه ويدين شيء ولا قبل اول هيك قالوا xogaan helay waliba xaqiiqan laakiin warka xaqiiqada waa isaga idin sheegay diyar garow walaalayaalow isaaqana waa tabi doonaan waxa hada gaadiid soo xambaaray waxa gaadiid wakiinay kullu qariib sanana ta ku dhacdana laga faraha gali doonaan waxa xaqiiq weey waxa kaliya aan u baahanahay way dawladda shacabka hogaamisa وتيفيا كهذا وشعب كهر سعطة وعندك توتاح حرتا وعسكو دبردا وتيفيا كهذا وبدين عدستا وأجدية لتا عيدو كوين أجدية شا مال سكفر لي قدامه بعد المصور إن الدفاع حاجته صورة جل معها ور نقطة عينما هو رأيك شيء عينما يقول يقولون حدين الصوت جبين وأين الصعب ترين وأين الضافر سكرين وردجال كان يستاجي معيو ninkii nabad raadinaya bahab wada hoosaasin yaa la maqlin dalka dhalinyarada waa isbishir si gaar ah loo hadlay dalkan inaga iska leh warin baa yacmush soo dhaqaalo urursanaya yana dalka difaac isku hadleen fadlan muqaalkan si shirkare si meel dheer u gaaro ciidanka saraakiisha u gaaro insha Allah taala wax kala dad awoodin shirkare khayr baa biir insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh